الله naxariiste maxamed faarax umar iyo cabdi xabiib ayaa ku geeriyooday ceelbiyood ku yaala deegaanka agamsaha ee degmada Arabsiyo ay qodayeen maamulka gobolka Gabiley ka degmada Arabsiyo iyo dadweynaha u tiro badan ayaa iyagu goobtaas u yimiday si ay uga qodaan meydadka ku dhintay ceelkaasi iyadoo ay sheegeen inuu mid saddexaad oo ku jiray inuu ka badbaaday qaar kamida dadka goob joogayaasha ee ku sugnaa goobtaasi ay ka dhacday dhibaatadu ayaa warbaahinta uga warbixiyay siyaabihii ay wax u dhaceen marka hore waxa qodii ila tobanini ba qodii tool isku diyaar gareynayo oo qaybtii kale aan dhacin qaybtii kale marka hore ay yiraahdeen inta ugu liigay xagga sare aan ka shaqeyno ayaa wuxuu dhacay saddexdiin ugu horeeyay baa ku dhacay markaa saddexdiin ugu horeeyay mid uu ka soo boodayo mijaha ayuu qayb ka soo gaadho waa gaadhay laba nin midna gudaha hoos ku jiray marka qoladu argagaxdo kan dhexda ku jiray waa gaadh laayay inuu gudaha hoos ku jiray la moodo nabar baa hoos u socday marka ay waxa ku dhintay loo marxuum ku dhintay Allah naxariistay ceelkii saddexaad ee Arabsi ahaan geerida foosha xun leh ka dhacdo dadkuna waxaan uga digaynaa inay ka digtoonaadaan waqtiyada roobabka ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeena samiriye ibaan ilaahay ka siiyo barasaabka gobolka Gabiley maxamed xaaji ismaan indhabalax iyo gudoomiyaha degmada Arabsiyo oo iyaguna gurmad halkaasi ku yimiday ayaa ka hadlay dhacdadaasi halkan maanta waxaynu joognaa waa degmada Arabsiyo iyo deegaankan oo kamid ah agabsaha maanta halkan waxa ceel ku dumay laba nin oo deegaanka kamid ah oo kana shaqeynayay ceelkan ruuxaantii maanta waxay tahay horta labada nin waa la soo saaray ninka kalena waa meydkiisa waa ku jira labadanba waa geeriba la xisaabinaya waxaan leenahay horta qoyskii ay ka baxeen iyo heeladii iyo dadka deegaankaba ilaahay samiriye ma ka siiyo waxaan halkan markaa anagu gurmadahan ugu nimid bal inaanu hawsha wixii aanu kala qayb galno hadaan maamulka gurmada iyo degmadaba nahay maamulka Arabsiyana waan la joogaa ilaa shicib waa la soo gurmaday hadii ay noqon lahayd wiishashkii hadii ay noqon lahayd lacag waxaanu dalabnay imka forklifti gacanta dheerayd si ay bal uga soo caawiso joogoo dheeraaday meesha 20 mitir ay gaarayso runtii dadaalkaas aanu ku jirnaa ilaa intaanu ka soo saareyno meydka labaadna waan hawsheeda waan wadeena marka dadka deegaanka waxaan kula dardaarmaynaa iyo dadka kale gobolkaba waxa la roobaad in waqtigan ciidu jilicsan tahay dooxuna ugu jiro 15 talaabo u jiro in feejignaan gaar ah la sameeyo oo aanu dadku durtaba ku dhiiran in ay si fudud u galaan waa masiibo weeye ilaahay waxaan uga baryaynaa labada qof ee ku geeriyooday in ilaahay naxariis janno ka waraabiyo inuu samiriye iimaan saadiqa ilaahay ka siiyo ilaa hadda hawshii waanu wadnaa qalabkii sida fiican uga saari lahaana waanu dalbanay waad garan karaysaa cagaf weyn oo cagaftan bookline la yiraahdo ka saari kartana waxa weeye gaari xamaala dib u soo qaadaya Hargeysa ka soo qaadaya taasumba wax ka qaban kartaa cagafyadan kale sheegashaayo waxyaabaha noo yaala ma aha kuwa ka saari karayna si dumiyaan mooyaane iyo naxdinun baan dadkii iyo maamulkii gobolka iyo maamulkii degmaduba naxdinun bay la taagan yihiin waa Sakariya Nuux Ibraahim warbaahinta SBC deegaanka agabsaha ee degmada Arabsiyo